bixin jirtay qaybtiisa kalena ay tahay inuu kolba wixii cusub bulshada reer Soomaaliland u baahan tahay inay ogaato la xiriirta xaaladda xanuunkan marka hore waxaan la socotaan inaynu qaran ahaan aynu ku jirnay dadaal socday muddada oo la jaan qaadayay isbedelada ku imanaya xaaladaha xanuunkan ama ha noqdo adduunka ama ha noqoto qaaradda Afrika ama ha noqoto gobolka geeska Afrika ama ha noqoto dalkeena inaynu xaaladaha la soconay oo marba wax isbedela aynu shacabka la socotiinay inaguna aynu talaabooyinka ku habboon aynu ka qaadanay arrimaha ugu horeeya waxa ugu muhiimsan in la socono dhaqdhaqaaqa dadka ee ka soo galaya dalka meelo kala duwan ama dhulka soo maraan ama badda kale aynu ku dadaali jirnay mar walba in cid ay looga shakiyo xanuunkaasi inuu ama ku dhacay ama loo baahan yahay in la xaqiijiyo inaynu shaybaad aynu u diri jirnay oo taana aynu go'aamada ku qaadan jirnay marka shaybaadka aynu isticmaalno WHO ay ku talisay oo halka ku yaala South Africa ama Kenya muddo dhaweed waxaanu shaacinay inay jireen laba xaaladood oo midkoodna uu magaalada Burco ahaa magaalada Berbera labada xaaladood baynu muddaba aynu gacanta ku haynay labada xaaladood caafimaadkooda aad buu fiican yahay wasaaradda caafimaadkuna si maalinle ayay ula socotaa xaaladda caafimaadka xogtoodana ay u heshaa arintaasi iyadoo jirto waxa jiray inaan wadana shaybaar u dirnay 24 qof oo dambe oo aanu daba soconay oo xaaladooda caafimaad la soconay 24 qof waxa noo soo noqotay natiijadoodii maantana waxaanu dadka u sheegaynaa bulshada reer Soomaaliland inay jiraan 3 kiis oo cusub oo xanuunka inuu qabo oo ku dhacay la xaqiijiyay xaaladooda caafimaad aad bay wanaagsan tahay wax imika calaamado badan kama muuqdaan xaalad kamida oo qofkaasi hadda wuxuu ku sugayay magaalada Boorama labada xaaladood kalena waxa ku sugayay magaalada Hargeysa inta waxa dheer inay jiraan laba qof oo kale oo iyaguna aanu si gaar ah ula socono xaaladooda caafimaad oo shaybaarkooduna aanu gacanta ku hayno oo wixii iska bedelana aanu dib ka soo sheegi doono inta markaynu aan ku dhameeyno warbixinta bulshada waxaan u sheegaynaa war xanuunkani uu jira waa dhab waxaanu sheegaynaa wax wala hubiyo oo aanan ku deelin kaliyata shaybaarka qaranka laakiin si aanu u hubino aanu WHO anagoo isticmaalayna guidelineskeeda iyo nidaamkeeda loo diro wadamada jaarka ee uu yaalo muxuu ahaa shaybaarada kuweena ka casrisan marka la soo xaqiijiyana aanu bulshada u sheegno xanuunkaasi uu jira waana marka la isku geeyo 5 kiis oo waxaanu haynaa xanuunkaasa saan sheegnay laba xaaladood dambana gacantaan ku haynaa taasi marka waxay waajib ka dhigaysaa qof walba adiga mas'uuliyad gaar ka saaran tahay inaad caafimaadkaaga ilaaliso tilmaamaha wasaaradda caafimaadka aad raacdo waxana saas ku bilaabma hadda adduunka dhageysanaysaan ma jiro wadan hal mar diiwaan geliye 100 kiis wuxuu ka bilaabmay xaalad laba xaaladood 3 4 5 tiraduna saas oo socotaa marka waxaan codsan lahayn fadlan hal loo dhigo nugulaado talooyinka wasaaradda caafimaadka qof walowna maanta macluumaadka la xiriira sida xanuunkan u faafo sida la isku dhowrayo qofka hadduu ku dhaco xataa sida aad ula macaamilaysaan waad ka dheregsantihiin laakiin waxaan u maleynayaa maanta waxaan taaganahay waqtigii qof walba uu si dhab arrinta u fulin lahaa xukuumad ahaanna guddiga qaran wada weydeen waxay soo saareen qaraaro tiro badan oo la xiriira habdhaqanka dadka meelaha la isugu imanayo iyo sida rabo dadku inay u noolaadaan wixii ka dambeeyana maalmo talaabo cusub baanu ku dari doonaa waxaana noqonaysaa dadka waajib baa naga saaran hal wacyi geliyo ama haloo isticmaalo habab kale dadkii xanuunkii laga ilaaliyo oo faafitaankiisana aynu yareyno hakino taasina waa waajibina saaran dhamaanteedba mar labaad waxaan aad ugu mahadnaqayaa bahda saxaafadda oo run ahaantii wacyigelinta door weyn ka qaata oo bulshada wacyigeliya xanuunkan wixii la xiriira markasta uu tabinaya waxaan codsan lahaynaa hawsha in la joogteeyo waxa kaliya ee dawada kaliya xanuunkaasi leeyahay ma dawo qofku liqo ma aha talaal waa inuu qofku ka hortag sameeyo